salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkanina waa taar t v daawade ku soo dhowaada barnaamijkeennii waxweydiin ogaal ka sheegnay qodobada war iyo wacalan idinka hayna carreede waxaa ugu dooro saraakiil maraykana oo ka degay haabada berbera dhacdo argagax leh oo ka dhacday ceelka hargeysa madaxweyne deni oo diray digniin iyo dadaarwarin beelihii abdiraxmaan iyo abduraxmiin oo la kala dhex hordaayo ssc faadumo oo laga reebay mashruuc la taartay maamul goboleedada soomaaliya dowladda oo arrinkeedu noqday wadnaha loo waayey geelii wiriir fadhiyey ninkii casaa oo sheegay inuu afka biyo ku haysto iyo weliba salebaan maxamuud aadan oo ku jira haddaan luqunta kor u taagi jiray liicda heraxdiiya waa taala leebada indhaha araggu liita wararkaasi iyo wararka dheeraad ayaan idinhaynaya ku soo dhowaada barnaamijkeen war farxadle ma ogtahay in jannadaadu ay ku jirto samafalka waalidka haddaba shirkadda almustaqbal ee xajka iyo cumrada ayaa kuu samaysa qiimo dhimis aad u ballaadhan oo ku saabsan ka cumraynta waalidiinta dhintay ama da'da shirkaddu waxay kuugu cumraynaysaa waalidkaaga $180 oo keliya waxaana laguu soo duubayaa fideoyo caddaynaya gudashada cumrada shahaadooyin rasmi ah iyo biyo samsama sidoo kale haddii aad adigu u socoto cumrada shirkaddu waxay kuu diyaarisay culimo kaa caawisa gudashada cumrada soo saarista fiisaha iyo dhammaanba adeegyada safarka kala xidhiidh lambaradan wararka aanu ka helayno guriga daanbari iyo inta haysa ayaa dhayda ka caddaynaya inay food saartay reeraha ceelka mooska dagaal adag oo aanu ilaa iyo hadda uu waxba u tari la'yahay ama uu bacraarin kari waayo dalka ruushku wararku waxay sheegayaan in weerar ay ku hayaan dalka ruushka cirjireer yar oo aan ishu qabanaynin kuwaasoo abbaaraya ama ku qarxaya goobaha halbowlaha ama kamakacdada ah ee dadweynaha dalka ruushka fiidmeerahan naqan ayaa tumaatiya iyo kaydadka shidaalka warshadda ama birqalaxda iyo dhulka lagama maarmaanka ee uu ka soo baxo dhaqaalaha dalka ruushku wararku waxay intaa ku darahayaan in tiraba la duqeeyey 1400 oo goobood kuwaasoo u badan warshadaha tabarta dhaliya ee dalkaasi ruushka iyo weliba xarumaha shidaalka lagu kaydiya dalkaasi afhayeen u hadlay dalka Ukraine ayaa isaguna damuuniyey inay tallaabadani tahay mid cadaadis lagu saarayo madaxweyne Vladimir isla jeerkaadna lagu sanduleynayo inuu sida ugu degdega badan u soo fadhiisto gogol nabadeed oo ay isku arkaan ruushka iyo Ukraine dhinaca kale afhayeen isaguna u dibinjaaqay sida tan iyo reeraha ceelka Moscow ayaa ku eedeeyay Ukraine inay dagaal ka geysay meel aan hore u joogin oo ay haatan bilowday fool cusub oo lagu wiiqayo dhaqaalaha ruushka wuxuu sheegay inay intooda badan ka hor tageen halgaadadii ay Ukraine ugu toogahaysay inay gebi ahaanba ku burburiyaan goobahaasi wuxuu sheegay in wararka sheegaya in la baabi'iyey ilihii dhaqaale ay intooda badan yihiin been iyo kabadbadin wuxuu shaaca ka qaaday in buunbuunintaasi ay gunta ka soo tareen reer galbeedka iyo wixii ay caga ku xaadhaan kuwaasoo haatan doonaya inay afka ku ciilbacaan ka gadaan markii ay waxba taari kari waayeen ugu dambayntii ruushka ayaa gantaalo iyo gamasyo mariidaysan ooda kaga qaaday magaala madaxa dalkaasi Ukraine ee Kiev taasoo la arkayay iyadoo ay qaybo badan balbalayaan ama gubanayaan sidoo kalena u isqabsaday qiiqa qaaca urada iyo holaca ka dhashay gantaalihii tirabeelka ee ay ciidamada ruushku dhankaasi Ukraine ku leeshaameen si kastaba ha ahaatee ninka u hadlay dalka ruushka ayaa ku goodiyey inay haatan ka go'an tahay sidii ay u ballaarin lahaayeen aaggooda dagaal islamarkaana ay iminka birtu saaran tahay 4 dal oo ka mid ah bugaanbugta beesha Yurub kuwaasoo ay ugu horeeyaan Czech Republic, Poland, Romania iyo Jarmalka oo ku tilmaamay inay noqdeen xasbaala galeena isaguna madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Deni ayaa ku dhaar maray isagoo labada qowlal aburka ka tuuraya inaanu socon doonin oo meel mari doonin qorshaha uu dabada ka turbaarinayo horjoogaha ceelka xamar ee loogu toogadahayo in la dumiyo dowladnimada Puntland qolana waa inii sheegaya niman gadaalka abuurbo Puntland waaga hor ma jirjirino oo aaminsan dalka inuu xoog iyo qor ku joogayaan wuxuu sheegay inaanu jimcaale jaamac takar weerar ku soo qaadi karin ceelka garowga gaar ahaana isagoo kabaqaad u ah xasan sheekh maxamuud oo tadqada laaday ama aan ahayn madaxweyne muddo xilaad haysta wuxuu sheegay ninkii xiniya ayaa uu bal soo bambaxo islamarkaana uu joojiyay dhumashada dhabarka muuqdo ee uu wado wallaahi billaahi watallahi naftooda beenu sheegay dalkan qor laguma haysan karo hal nin oo qor haysto xoog ku qabsada dalkan ma jiro wiilkaad nagala socotaan waa taar TV waxaa dharaartii shalay gigida diyaaraduhu ka aadaan ceelka berbera ka degay wafdi ciidamo oo wata gaadiidka cirka kuwaasoo ku habsaday berbera iyo inta haysa waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey wafdigan saraakiisha sare ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan taliyaha guud ee ciidamada Nimcaan Yuusuf Gaaxnuug iyo weliba taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland
ciidamadan soo gaadhay magaalo xeebeedda gobolka saaxil ee berber ayaa la sheegaya inay ka tirsanaayeen ciidamada reeraha washington kuwaasoo haatan u toogahaya inay la wareegaan saldhigga ciidan ee uu maraykanku magaalada berbere ka eebiyey kaasoo dhismihiisu iminka soo gebagaboobay sida wararku sheegayaan ciidamadan maraykanka ah ee soo gaadhay magaalada berber ayaa la tibaaxaya inay ka soo rafaqsadeen dalka jabuuti iyo saldhigga ay ciidamada maraykanku ku leeyihiin ballidoogle kaasoo ay dhowaan sheegeen inay ka xuub siiman doonaan geesta kalena bulshada reer berbera ayaa u hanqaltaagaysay ama daymoonaysay waxaa ka socda gegidheerta ceshiiruhu islaba rogaan ee magaalada berbera waxay dadku daymoonayeen xiinka xawaaraha xurgugofta hugunka hanqadhka reenka iyo guuxa ay samaynayaan gaadiidka cirka ee kale oologa ah ee ay wataan ciidamada maraykanku wararka ayaa sheegaya inay wafdigan ciidan guriqabad u yihiin kuwa soo guuraya ama soo barakacay kuwaas oo ka iman doona meelaha ay jabuuti iyo ballidoogle ugu bowda dheer yihiin wararku waxay intaa ku biirinayaan in saldhigga ay magaalada berbera ka wadeen jeesadka midoobey ee imaaraadka carabta muddo ku dhow 2 gu iyo 2 dayro islamarkaana ay haatan rarada saareen ama ku mirtireen gibisha iyo xeerka dhinaca kale dhowaan ayay ahayd ka gadaal markii uu wargeys ka soo baxa dalka faransiisku uu far waaweyn ku soo girgiiray in saldhigga magaalada berbera ay wada guuleen dalalka maraykanka israa'iil iyo jeesadka midoobey ee imaaraadka carabta si ay uga maarmaan saldhigga ay ciidamada maraykanka ku lahaayeen ama fadhiisinkoodii dalka jabuuti iyagoo ku seebiyey inay jabuuti waxba ka qaban weyday doodii ay u gudbiyeen dhowrka goor taasoo daaraneed inay kala fogeeyaan saldhigyada maraykanka iyo duulka digaanyada daanbari ee shiinaha maadaama oo ay jabuuti kala dejisay shiinaha iyo maraykanka 2 meelood oo isu muuqda amase isu tusan taasoo ay hiir ka gooseen ciidamada maraykanka ee fadhigoodu yahay xeebaa dalka jabuuti ciidamada maraykanka ayaa xilligaasi sheegay inaanay isa sii eegan karaynin iyaga iyo qolyaha indhaha shuqubaha leh shiinaha tiyo ay ciidamada maraykanka ku seebiyeen inay shiiluhu yihiin markii la arkaba kuwa faraha kula jira xuuraan xatooyo iyo weliba inay doonaan xayiig aanay lahayn si ay u magolootiyaan ama u mooraduugaan wax kasta oo ay u bogaan iyagoo markaasi macmaci doona maraakiib iyo minawaaro u muuqaal eeg kuwa maraykanka hase ahaatee aan la taya ahayn ama aan la tamar ahayn kuwa reeraha washington sida la ogyahay waxaa ka dhexeeya labada dhinac ee beijing iyo washington xifaaltan ku saabsan tartanka hubka iyo weliba saanada ciidamada kala duwan kuwaasoo bad leh oo cir leh oo dhul leh oo gantaale leh oo gamasyo leh oo gaashaan leh oo garmaqaate leh oo teeri leh oo mariil leh oo mukakaal leh oo murjisyo leh oo warma leh oo hotooyin leh oo maraakiib leh oo minawaar leh oo doonyo leh oo gujisyo leh oo diyaarada leh oo cirjira leh oo cirmaaxa leh oo habas leh oo fadhiisanog leh oo fiidmeero leh oo balambaalis leh wiilkaad nagala socotaan waa taartiib iyo xadharaartii maanta ahayd ka soo muuqday baraha bulshada ee la isdoocsado ciidamo jirdil iyo garaac isugu daraya nin reer somalilan kaasi oo la faray inay soo labadibleeyaan ciidamada oo watay qoraal soo qabasha ama waxa afka qalaad lagu dhaho waaranka ayaa ninkaasi oo lagu magacaabo inay bedel u adeegsaday awooddeeraada waxaa la arkayay iyagoo dhulka jiidjiidaya oo ku tumanaya oo kabaha la dulmaraya islamarkaana dhakada kaga taagan gabadh markaa ka ag dhoweyd goobta uu falkani ka dhacayo ayaa duubtay muuqaalka oo qabsaday baraha bulshada iyadoo la dheehanaya ninkaasi oo qaylinaya islamarkaana ugu dambayn miidoosoomay waa kan haddaba muuqaalka ninkaasi muwaadinka ah ee dhulka la jiidjiidayey garyaqaan guuleed axmed jaamac guuleed dafaac ayaa soo gasageeray inay falkaasi uu ahaa mid aad u fool xun oo aan loo baahnayn inay ku dhaqaaqaan duulka bileys la yidhi wuxuu sheegay in xeerarka dalka u degsan aanay banaynin sidaa bahalnimada ah loo jidlo dadka lasoo qabanayo ama lasoo eedeeyey wuxuu soo jeediyey duulka bileys la yidhi inay degdeg u soo qabtaan oo lasoo xidho askarta waxaa samaynaysaa حتى هو مسؤول arrintaasi waxay soo waldaamisay inay ciidamada nabadgelyada somalilan ku dhawaaqaan inay gebi ahaanba labada gacmood ku soo dhigeen askartii ku kacday joorfalkii maanta qabsaday baraha bulshada waxay sheegeen inay la tiigsan doonaan geedaha garta qaaday islamarkaana laga qaadi doono tallaabo aanay mahadin amase ay ka naasnaasiyaan waxay intaa ku biiriyeen duulka bileys la yidhi in ciidamada loo diray inay ninkaas soo dhuuxiyayaan balse aan looga fadhiin waxaan xil kale ee xaaraanta ah ee ay ku sameeyeen eedaysanaha loo diray waxay hadalka ku soo afmireen duulka bileys la yidhi inaanay dhacdadaasi oo kale dib ugu soo laaban doonin ciidamada islamarkaana ay dadku ogaadaan inuu bileysku yahay saaxiibka dadweynaha waxaa weli sii socda dhismaha dabaqa labaad ee sarta masjid jaamaca macalin xirsi ee magaalada caynaba qaybtiisa koowaad kaasi oo ay ka qayb qaadanayaan bulshada soomaaliyeed ee wanaagga jecel islamarkaana hor ilaahay ula baxaya wixii ay awoodaan ee ay ugu deeqayaan gurigan eebe oo aan cidna laga xigin amase aan laga sheegan karaynin sida aad la wada socotaan waxaa dhammaaday foolkii koowaad ee masaajidkan waxaana iminka la rabaa in laga bilaabo qaybtii koowaad ee dabaqa labaad oo u baahan in looga qayb qaato hor ilaahay iyo habeen aakhiro
iyadoo wax lasii dhiganayo maalinta dambayse ee la qatan yahay amase la qaawan yahay taasi oo ah dhalaarta eebe qur-aankiisa ku yidhi ama ku sheegay yowma laa yanfacu maalan walaa banuun ilaa man ata allaahu bilqalbi saliim. haddaba daawade lambarada aad wax kula baxayso oo kuwa shaashada kaaga muuqda